محمد صلى الله عليه وسلم وكا أمد بدباده نبي محمد وكا إله إن بري نبي محمد وكا عرك إيرلوك إسكو حري نبي محمد وكا أخلاق دا وناكسن إنو ليمي نبي محمد وكا مبدقي إيا قال لمدي إيو إن دالي إذن لغتشري إنك صار النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد أياك قرح بدنا نبي محمد أياك وناكسنا نبي محمد أياك عقل بدنا نبي محمد أياك صبر بدنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحان كلنا هاي يا رسول الله فداك أبي وأمي أنت يا رسول الله هو يا أبو يا وحان جعلنا هاي يا وح والبا رسول الله وانكو غفرانينا وانكو جعلنا هاي رسول الله وحيكا قادي مجرو جعيل كاو نفط أيو نغا جيرا شرك أيكو دحدلالا يا رسول الله فداك أبي وأمي أنت يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال عربت وحي أهايين dad aan taariikh iyo xadaaro midna aan lahayn waxay ahaayeen dad ku nool dhulkaas saxraaga ee lamadegaanka ah dad adhi jiro ah geel jiro ah ayay ahaayeen waxay ahaayeen dad badowa oon waxna akhriyin waxna aan qorin ayay ahaayeen waxay ahaayeen dad islaaya isku laaya biadfahi اlasbaab wax aan micno lahayn ayay isku layn jireen kooga xooga badan kooga daciifka ah wixiisa ayuu qaadan jiray hablaha ayay nolosha ku aasi jireen iyaga oo nool iyaga oo laceeb iyo faqirtinimo ayaan ka cabsanaynaa awgeed dhexdooda xumaan oo dhan baa ku faaftay zinadaa ku faaftay anshaxa xun baa ku faafay waxaa ku faafay alcasabiya alqabaliya in ay qabyaalad iyo qurun u dagaalamaan walaalayaal dadka oo sidaa ku jira carabta oo xaaladaa ku sugan oo 360 sanam caabuda kacbada agteeda 360 sanam ayaa yaala iska daa inta guryaha u taala dadka foosha xun ee badowda ah ee qiimo lahayn ee taariikh lahayn ee islaaya ee sida u foosha xun ayaa dhexdooda waxaa ka dhashay nebi محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منه رسول كاسا دحدود لغا سو ساري رسول كاسي ومد إلهي الدورتي وربك يخلق ما يشاء ويختار إلهي أيها دورتي إلهي أيها برباري إلهي أيها كورهي إلهي أيها إلالي نبيغاس عليه الصلاة والسلام وحوءها dadka ka ugu nasabka fiican ka ugu sharafta badan ayuu ahaa ka ugu akhlaaqda wanaagsan ka ugu dhulka fiican ayuu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed waxa uu ka dhashay usro la yidhaahdo alusra alhaashimiya nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha astafaa min waladi ibraahiima ismaaciil ilaahay waxa uu ka doortay awlaaddii uu nebi ibraahim u dhalay awlaaddii nebi ismaaciil ayuu ilaahay ka doortay awlaaddii nebi ismaaciilna kanaana ayaa laga doortay kanaanana ilaahay waxa uu ka doortay qorayshna reer binu haashim
nebigu waxa uu yidhi anigana ilaahay reer banu haashim ayuu iga dhex doortay. walaalayaal, rasuulkaasi ilaahay ayaa doortay. ilaahay baa dhammaystiray akhlaaqdiisa, dabeecaddiisa, quruxdiisa, hadalkiisa, fahankiisa, dulqaadkiisa, ammaanadiisa, dhinac walba wuu ka dhisnaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. markay ka yaabeen asxaabtu waxay ku yidhaahdeen rasuul allow ayaa ku edbiyey. nebigu waxau ihi adabanii rabbii fa axsana ta'diibii. ilaahay baa ii edbiyey, edebteedana wanaajiyey. weligii nebi moxamed ma zinaysan, weligii nebi moxamed khamri ma cabin, weligii nebi moxamed wax ma xadin, weligii nebi moxamed wax ma dilin, weligii qimaar ma ciyaarin nebi moxamed, weligii sanab uma sujuudin, weligii been ma sheegin, weligii qof ma khaayinin, weligii xumaan laguma arag. wuxuu ahaa dadka oo dhan ka ugu akhlaaqda badan, ugu dabeecadda fiican ayuu ahaa, ka ugu weji qurux badan ayuu ahaa nebi moxamed. wuxuu ahaa ka dadka ugu qalbi nadiifsan ayuu ahaa. weligii wax ma xaasidin nebigu, weligii naftiisa uma argudin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam. nebigu wuu qurux badnaa, wuu ilka caddaa, wuu weji furnaa. sidaasuu ahaa nebi moxamed. ilaahay baa doortay. ilaahay baa khalqiga oo dhan markuu basharka u abuuray nebi moxamed buu ka doortay. ka dadka ugu fadliga badan ayuu ahaa. basharka oo dhan, basharka ilaahay markuu abuuray ambiyadiisa ayuu ka dhex doortay. ambiyada waxaa lagu tiriyaa 124 nebi. nebiyaashana ilaahay waxa uu ka sii dhex doortay rusushiisa 315 rasuul ayay ahaayeen. rusushiina ilaahay waxa uu ka sii dhex doortay kuwa la yidhaahdo ululcasmi min arusul. waa nebi nuux, waa nebi ibraahim, waa nebi muuse, waa nebi ciise, waa nebi moxamed. shantaana ilaahay waxa uu ka sii dhex doortay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. dadka oo dhan, khalqiga ilaahay u abuuray ee bashar oo dhan ka ugu fadliga badan ayuu ahaa nebi moxamed. uu ilaahay ugu jecel yahay ee ilaahay ugu dhow. walaalayaal, ilaahay baa doortay. wallaahu aclamu xayثu yajcalu risaalatah. ilaahay baa risaaladiisa iyo diintiisa nebiga u doortay sala allahu calayhi wasalam. ilaahay baa ammaanay, ilaahay baa edbiyey, ilaahay baa barbaariyey, ilaahay baa ilaaliyey oo xumaan oo dhan ka ilaaliyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kitaabkiisa u doortay oo ku soo dejiyey qur'aanka kariimka ah. maxaa loo doortay nebi moxamed? inuu dadka ilaahay baro. waxaa loo doortay nebi moxamed inuu dadka shirkiga iyo mubdiga iyo gaalnimada uu ka saaro, islaamnimada u saaro. waxaa loo soo saaray nebi moxamed in dhulka iyo cirka la isku xidho ayaa loo soo saaray. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wanaagga iyo khayrka ayuu dadka ugu yeedhayey, xumaanta oo dhan buu uga digayay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam. nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam, maanta gaaladu ay caayayaan. nebi moxamed wuxuu ahaa nuur, nebi moxamed wuxuu ahaa akhlaaq. nebi moxamed ayaa ka maskax badnaa, nebi moxamed yaa ka fahmad badnaa, nebi moxamed yaa ka nadiif badnaa. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam qoraxda, cadceedda xataa uu ka qurux badnaa. ilaahay qoraxda markuu sheegayay cadceedda, ilaahay waxau yihi wajacalnaa siraajan wahaaja. waxaan ku sugnay buu ilaahay yidhi samada oon dhignay cadceed. siraaj waa iftiin, wahaajan oo hollacaysa, iftiimaysa, wax gubaysa. laakiin nebiga ilaahay muxuu ku tilmaamay? wasiraajan muniira. waa iftiin wax nuurinaya buu ilaahay yidhi. wax nuurinaya, wax ma gubayo, waxbuu nuurinayaa. yaa ayuha الnabiyu inaa arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira wadaaciya ilى اllahi biidnihi
wasiraajan muniira wanaaguu nebigu dadka ugu yeedhayaa jannu dadka u bishaaraynayaa xumaantuu uga digayaa naar buu uga digayaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam mar walba ood nebiga u dhowaatid sunnadiisa u dhowaatid akhlaaqdiisa u dhowaatid diintiisa u dhowaatid nuur iyo iftiin iyo wanaag iyo xasilooni ayaad u dhowaanaysaa mar walba ood ka fogaatidna waad baaba'aysaa waad halaagsamaysaa meel xun baad ka dhacaysaa walaalayaal rasuulkan nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam qur'aanka haddaad akhridid waxaad arki nebi walba ilaahay magaciisa ugu yeedhayaa nebi aadam ka soo bilow yaa aadam uskun anta wazawjuka aljanna nebi ibraahim yaa ibraahiimu qad sadaqta aru'ya nebi nuux yaa nuuxu hbit bisalaamin mina nebi daawuud yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan nebi muuse yaa muusa inii ana rabuka nebi ciise yaa ciisa bni maryam yaa ciisa bna maryam a anta qulta linnaas laakiin qur'aanka ka arki maysid yaa muxamed ka arki maysid bal waxaad ka arki yaa ayuha الnabiyu yaa ayuha الrasuulu yaad ka arkaysaa xataa nebiga magaciisa haddii la sheegayo rasuul baa la raacinayaa wamaa muxamadu ilaa rasuulu qad khalat min qablihi الrusul ilaahay baa yidhi muxamadu rasuulu اllah wاladiina macah walaalayaal waxaa looga digay dadka inay nebi moxamed agtiisa ku dhawaaqaan codka kor ugu qaadaan yaa muxamed inay yidhaahdaan oo sida dhexdeeda ay iskugu yeedhno oo kale ay ugu yeedhaan nebiga ilaahay waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy nebi moxamed markaad la hadlaysaan codkiina yuuna ka sarayn baa la yidhi codka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ka edebsada walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacd barhkiinba barhka kale sida codka kor ugu qaada iskugu yeedhaan sidaa nebiga ha ula dhaqmina ka edebsada waa kii ilaahay doortay waa kii risaalada waday is-ilaaliya la yidhi codka kor ha u qaadina ina aladiina yaguduuna aswaatahum cinda rasuuli اllahi ulaa'ika aladiina imtaxana allahu quluubahum litaqwa codka hoos u dhiga ayaa la yidhi kuwa codka kor u qaada ina aladiina yunaaduunaka min waraa'i اlxujuraat yaa muxamed caraabtii badowda ahayd muxamedow noo soo bax kuwaasi waxaa la yidhi waxba ma garanaya akaruhum laa yacqiluun wax ma garanayaan nebi moxamed sala اllahu calayhi wasalam ilaahay baa yidhi ka edebsada waa rasuulkii ilaahay waa kii inigu khayrka badnaa waa kii inigu fadliga badnaa waa kii inigu dulqaadka badnaa ka edebsada nebiga calayhi salaam walaalayaal nin walba oo caana haddaad soo qaadid taariikhdiisa ood baadhid waxbuu ku caanbaxay laakiin waxyaalo badan ayuu ka dhacsanaa ninkii la odhanayay shakespeare haddaad soo qaadid fii maydaan alkitaaba waxaa la yidhi xariif buu ahaa laakiin meelo badan baaba buu ka ahaa nabilyon haddaad soo qaadid fi lquwa alcaskariya aad buu u yaqaanay laakiin dhinaca kale sifir buu ka ahaa khandi haddaad soo qaadid fii majaali siyaasa nacam laakiin meelo badan sifir buu ka ahaa folter fi lfikir laakiin meelo badan sifir buu ka ahaa xataa ambiyadii ilaahay uu soo diray ilaahay wuu dooranayay laakiin waxay caan ku ahaayeen qaarkood sifaat bay ay caan ku ahaayeen nebi ciise calayhi الsalaam waxaa lagu yaqaanay zuhdi iyo warac ayaa lagu yaqaanay noloshiisa laakiin ma guursan nebi ciise calayhi الsalaatu wasalaam sida awgeed kaga dayan kari maysid qaabka aabbuhu ilmihiisa ula dhaqmayo ama qaabka uu ninku haweenadiisa ula dhaqmayo nebi ciise kaga dayan kari maysid leannu ma soo guursan sayiduna sulaymaan calayhi الsalaam waxaad kaga dayan kartaa alshakhsiya alxaakim alcaadil alghaniy alshaakir laakiin ma noqon miskiin faqiir ma noqon la daciifsado ma noqon kaga dayan kari maysid meesha laakiin nebi moxamed sala اllahu calayhi wasalam dhinac walba wuu soo maray waxaas oo dhan iyo dhinac walbaad kaga dayanaysaa ilaahay baa dhisay ilaahay baa qurxiyey ilaahay baa hufay
ilaahay baa hagaajiyey, ilaahay baa ilaaliyey. nebi maxamed dhinaca jihaadka marka ay tid qaa'id buu ahaa, ciidan idil hogaamiye. dhinaca salaada imaam idil buu ahaa. dhinaca zuhdiga alcaabid buu ahaa. dhinaca daaci buu ahaa nebigu, murabbi buu ahaa, xaakim buu ahaa. dhalinyarnimuu soo maray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la wada garanayo noloshiisa iyo taariikhdiisa. aabbuu ahaayo awlaaddiisa siduu la dhaqmaye dumarkiisa la wada garan. sheekh buu noqday, qof weynoo waayeela oo lagaga dayan karo. caabid buu noqday, maxkuum buu noqday oo la xukumo. wuxuu noqday faqiir buu nebigu noqday, agoon buu noqday. intaba nebi maxamed wuu soo maray sala allahu calayhi wasalam. walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisa nebi walba sifa lagu ammaanay, sifo astaan baa lagu ammaanay, calaamad baa lagu ammaanay. ilaahay nebi ibraahim waxa uu yidhi wadkur fi lkitaabi ibraahiima inahu kaana sidiiqa nabiya. sidiiq ayuu ahaa, farbadne. nebi muuse ilaahay muxuu ku ammaanay wadkur fi lkitaabi muusa inahu kaana mukhlasan wa kaana rasuula nabiya. mukhlasan buu ahaa, taasaa lagu yaqaana. nebi ismaaciil ilaahay muxuu ku ammaanay wadkur fi lkitaabi ismaaciil inahu kaana saadiqa alwacd wa kaana rasuula nabiya. ballantu aad u ilaalin jiray. nebi idriis ilaahay muxuu ku ammaanay wadkur fi lkitaabi idriis inahu kaana sidiiqa nabiya. sidiiq inuu ahaa ayuu ilaahay ku ammaanay. ilaahay nebi walba sifuu ku ammaanay. laakiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam gebigiisuu ilaahay ammaanay. ilaahay wuxuu ammaanay indhihiis. habeenkuu micraajka samada markii la geeyey meelaha muu khawisi jirin, muu eegi jirin, hoosta wax kama eegi jirin. maa zaaqa albasaru wamaa tagaa. laabtiisuu ilaahay ammaanay. maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa. caqligiisuu ilaahay ammaanay. maa dalla saaxibukum wamaa gawaa. sharcigiisuu ilaahay ammaanay. wamaa yantiqu cani ilhawaa. carabkiisa ayuu ilaahay ammaanay. in huwa ilaa waxyun yuuxaa. macallinkiisuu ilaahay ammaanay. callamahu shadiidu lquwa. ilaahay waxa uu yidhi magacaaga rasuul allah kor baan u qaadanay. warafacnaa laka dikrag. ilaahay dabeecaddiisa oo dhan ayuu nebiga sheegay wainaka lacalaa khuluqin cadiim. dabeecadaha darajaad bay leedahay. aduu baa la yidhi rasuul allah wainaka adigu lacalaa khuluqin, dabeecadtii ugu saraysay ayaad ku sugan tahay. bal ibnu cabaas radia allahu canhu waxa uu leeyahay ilaahay qof noloshiisa kumuu dhaaran siduu nebi moxamed noloshiisa ugu dhaartay. waxau ihi maa xalafa allahu bixayaati axad ila bixayaati muxamed. ilaahay muxuu yidhi lacamruka nebi allow noloshaadaan ku dhaartay. inahum la fii sakratihim yacmahuun. baadidaasay ku indhalaayihiin buu ilaahay yidhi. ilaahay waxa uu xidhiidhiyey hanuunka haddii aad doonaysaan nebi maxamedun dabagalaa yidhi wain tuiicuuhu tahtaduu. wain tutiicuuhu tahtaduu. nebi maxamed haddaad dabagashaan umaad hanuunaysaan buu ilaahay yidhi. bal ilaahay wuxuu le ka digtoonaada nebi maxamed inaad khilaaftaan. falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim. walaalayaal, rasuulkaasi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa shakhsiya mutakaamila, buuxda. ilaahay baa buuxiyey. acdam insaan uu ilaahay soo diray buu ahaa nebi moxamed. munqid albashariya, bashariyadda oo dhan kii badbaadiyey ayuu ahaa. nin faylasoofa oo ingiriisa ayaa waxa uu oo bernadeer la yidhaahdo ayaa waxa uu yidhi wa araa waajiban an yudcaa muxamed munqid alinsaaniya. waxaan arkaa in muxamed loo bixiyo munqid alinsaaniya, kii ummadaha badbaadiyey, bashariyadda oo dhan kii badbaadiyey. wuxuu yidhi mashaakilkan maanta adduunka jira maxamed oo kale hadduu jiri lahaa wuu hagaajin lahaa, laakiin ma jiro. waina rajula kashaakilatihi إida tawalى zicaamaة alcaalam اlxadiiث lanajaxa fii xalli mushkilaatih. maxamed
mashaakilkaa maanta adduunka jira u xallin lahaa saasuu leeyahay walaalayaal nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddaa liidatay ee carabta u ka soo baxay ee shalay aan qiimo lahayn een taariikh lahayn ee xadaaro aan lahayn ee la oqoon ee adhi jiraha ee geeljiraha ah ee islaaya waxa uu ka dhigay ummad nool waxa uu ka dhigay ummadaha jirta waxa uu ka dhigay khayra ummatin ukhrijat linnaas ummadtii ugu khayrka badnayd ee dadka loo soo diray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa kaa ummadda badbaadiyey nebi moxamed waa kaa ilaahay ina baray nebi moxamed waa kaa cirka iyo dhulka isku xidhay nebi moxamed waa kaa akhlaaqda wanaagsan inoola yimid nebi moxamed waa kaa mubdigii iyo gaalnimadii iyo indhali'idii lagu jiray inaga saaray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed ayaa ka qurux badnaa nebi moxamed ayaa ka wanaagsanaa nebi moxamed ayaa ka caqli badnaa nebi moxamed yaa ka sabir badnaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaan ku leenahay yaa rasuula allah fidaaka abii wa ummii anta yaa rasuula allah hooyo iyo aabbo iyo waxaan jecelnahay iyo wax walba rasuul allah waanu kugu furanaynaa waanu ku jecelnahay rasuul allah wax ay kaa qaadi ma jiro jacaylkaagu nafta ayuu nagaga jiraa jirka ayuu ku dhex dhalaalayaan rasuul allah fidaaka abii wa ummii anta yaa rasuula allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi